Magnet. Huh? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada aqoon doon channel waa cashirkeenii koowaad ee HTML5 kaasoo aanu kaga hadli doono horudhac ku saabsan HTML-ka balse intaynu guda gelin muuqaalka waxaa xusid mudan haddaad tahay daawado ku cusub channelka inaad tiraahdo subscribe taabatana bell iconka si aadan u siigin cashar walbo cusub. ereyga HTML waxaa laga soo gaabiyey Hypertext Markup Language kaasoo ah markup ama system ka kooban elementiyo laguna talagalay in lagu muujiyo ama lagu qeexo content gaar ah. ereyga markup micnihiisu waa waxa lagu declare gareeyay ama lagu qeexay HTML-ka gudihiisa kaasoo u soo muuqanaya qofka viewer-ka ama qofka arkaya, laakiin macnaheedu ma ahan qaabku u soo muuqanayo. qaabka uu u soo muuqanayo waxaa u xil saaran CSS-ka ama cascading style sheets. tusaale, qaabka background-ka kale uu noqonayo ama color-ka background-ka uu noqonayo ma buluug mise cadaan, kafee mise jaalle, ama alignment-iga textiga uu qaadanayo dhinaca textiga uu tagayo ma qaybta bidix mise midig ama qaybta kore iyo wixii la mid ah. waxaa ka hadla CSS-ka. Doctypes waxay browserada ka caawiyaan in uu fahmo HTML-ka iyo noocuu yahay ama version-ka HTML-ka uu yahay inuu garto. aan u gudubno qaybta practical-ka ah. ugu horeyn waxaan sameynaynaa folder oo aan daatada ku xareysano. magaca doonto ku qor, waxaan isaga qorayaa web page. kadib waxaad soo kicisaa text editor-ka aad isticmaalayso. anigu waxaan isticmaalayaa Sublime Text 3. intaadan waxba sameynin marka hore save garee, file dheh, kadib save ama shortcut waxaad isticmaali kartaa Ctrl S. magaca doonto ku qor, waxaan isaga qorayaa test. markaad qorto waxaa muhiim ah inaad raaciso extension-ka uu qaadanayo. waxaad tiraahdaa marka .html, waxaad la aadaysaa folder-ka aad samaysay, kadib waxaad tiraahdaa save. intaa markaan sameyno waxaa loo baahan yahay marka hadda inaan furno tagga ugu horeeya oo uu ku soo kacayo HTML-ka. marka waxaad qabanaysaa shift key, kadib open tag aad leedahay. markaan taabano automatically waxaa soo baxaya HTML. waa Sublime Text waxa ugu fiican yahay text editor-da kale. kadib waxaa iska tiraahdaa enter. all tags hadda way noo furan yihiin. marka waxaan u gudbaynaa qaybta title-ka ah. waxaan ku qoraynaa aqoon doon web page. intaa markaa qorto hadda waxaa kuu soo muuqan doono web page-kaada title-kiisa ugu horeeya ee uu ku soo kacayo. aan tijaabino. noo soo fur folder-ka aan sameynay, double click, kadib soo kici test. marka saa arkaysaan halkaa waxaa noogu muuqda aqoon doon web page. marka title-ka wuxuu noqonayaa waxa uu ku soo kacayo page-kaada ama page-kaada name-kiisa. qaybtan waa body-ga, waana qaybta xambaarsan HTML documents-ka. waana qaybta ay ka kooban yihiin ama ay ku jiraan all content-iga uu leeyahay HTML-ka sida qoraalada, sawirada, linkiyada, taybalada, listiyada iyo wixii la mid ah. tusaale oo kale waxaan isaga qoraynaa this is simple HTML page. save dheh. mar kale aan tijaabino. halkan hadda qoraalka uu noogu muuqdo waa qaybta body-ga, waana qaybta keliya ee soo muujinaysa qoraal walbo ama sawir wuxuu doono ha noqdo, waa body-ga. cashirkeena intaa buu inoogu egyahay maanta. intaan ku kulmi doona cashirka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.